الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة والأخوات ولا ليال دمانتين dadka jecel inay xajiyaan aadaan beydka ilaahay soo gutaan waajibaadkii xajka dhammaantiin waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal maantay oo bisha shawaal ay tahay 30 waxaan duubaynaa duruus ku saabsan xajka ayaan duubaynaa. duruustaas oo looga jeedo in dadka walaalaha muslimiinta ay ka faa'iidaystaan oo ay duruustaas ka bartaan manaasigta xajka, acmaasha xajka ay ka bartaan si ay u xajiyaan ayaka oo calaa basiiratin min acmaalihim iyakoo garanaya oo yaqaana xajkii iyo axkaamtiisa. nabiga sala allahu calayhi wasalam waa ka yidhi khuduu cannii manaasikakum oo kamaa qaala sala allahu calayh wasalam iga qaata aniga sidaad u xajin lahaydeen. oo nebigu sala allahu calayhi wasalam asagaa xajiyey oo xajka tegey oo saxaabada hoggaaminahayey, asagaa baray muslimiinta sida loo xajiyo, sida uu u baray sida loo tukado iyo sida loo soomo, sida sikada loo bixiyo iyo sida maaragtay loo jihaado iyo sida maaragtay ilmaha loo rabeeyo, sida xaasaska loola dhaqmo, sida ummadda loola dhaqmo, sida maaragtay si kastaba nebigu asagaana baray sala allahu calayh wasalam. marka qofka muslimkaa oo raba inuu xajiyo oo xajka aado waxaa saarana waajib ku ah inuu barto axkaamta xajka, inuu barto. ilaa waa kharash baa kaa baxaya, waa safraysaa, meel fog baad tegaysaa, rugni weyn baa gudanaysaa. haddii marka aad wixii ay kaa noqdaan waxba kama jiraan. dadaal baa bixisay, juhdaa kaa baxay, lacag baa kaa baxday, dhulkii baa tagta barakaysnaa, laakiin uma aadan xajin sidii la rabay, si khaladaa u xajis. wixii waxba kama jiraan bay noqdeen. xajigii nebiga sala allahu calayh wasalama xajkaagii maaha, lama aqbalin. maxaad faa'iday marka? tacab khasaar baa kugu dhacay, xoolihii kaa baxay, waqtigii kaa baxay, dadaalkii kaa baxay, lugayntii faraha badnayd, soo jeedkii iyo rafaadkii waxay noqonayaan waxba kama jiraan. si aysan saa kuugu dhicin walaalaha xajinahaya, walaalaha muslimiinta ay xajinahaya, waa waajib waxaa ku ah inay bartaan axkaamta xajka. alla idankii subxaana wa tacaala marka arrimahaas ama ku saabsan axkaamta xajka ayaan sajalaynaa in sha allah. waxaan ka bilaabaynaa kow, horta xaji maxaa la yidhaha? maa huwa alxaju? xaj waa maxay? xaj maxaa la yidhaahdaa? cumro maxaa la yidhaahdaa? xagga luqada iyo sharciga labadaba. xajka waxaa la yidhaahdaa macnihiisa alqasdu, ujeeddo in meel loo aado, in meel loo aado ujeeddo. culammada qaara waxay yidhaahdaan waxaa ku jira macno kaloo ah soo laalaabasho, qofku inuu meesha ku laalaabto. sharciga waxaa lagu yidhaahdaa alqasdu ilaa beyt illaahi alxaraam liadaa'i cibaadatin makhsuusa bishuruudin makhsuusa. xajka waxaa la yidhaahdaa in la aado oo loo qasdo beytka ilaahay subxaanahu wa tacaala, in la aado kacbadii, masjidulxaraamkii, mashaacirtii in la aado xajka. oo maxaa loo aadayaa? liadaa'i cibaadatin makhsuusa, cibaado gaara oo xaj la yidhaahdo in loo aado ayaa xaj la yidhaahda. bisharaa'id makhsuusa oo bishuruudin makhsuusa, shuruudo gaara oo aan arki doonno oo laga rabo qofka xaajigaana inuu la yimaado ayaa xaj la yidhaahdaa. xaj marka muxuu noqday? waa in loo aado beytka ilaahay, cibaado in la soo guto, alla dartii loo soo guto, cibaado gaara oo xaj la yidhaahdo, shuruud gaarana leh. taa waa xajki. cumro maxaa la yidhaahdaa? cumrada luqada waxaa la yidhahda aziyaara, booqasho ayaa la yidhahdaa cimrada. ilaa waa alxaju waalcumratu.
sharciga waxaa la yidhahdaa alqasdu ilaa beyt illaahi alxaraam ayaa la yidhaahdaa in la aado beytkii ilaahay xurmada lahaa fii gayri waqti alxaj waqti aan xaj ahayn bilii xajka waqti aan ahayn ama xajkii lagu dhex darana waa dhacdaa in xajka lagu dhex darana waa dhacdaa oo xajkii lagu dhex daro oo xilliga bilay xajka laftooda la cumraystana ayana waa furan tahay laakiin cumrada waa arki doonnaayo waxay uga duwan tahay xajka ayadoo sanadka oo dhan baa la cimraysan karaa laakiin xajku bilo gaaroo kooban ayuu leeyahay marka cimradu waa maxay in loo qasdo oo la aado beytka ilaahay in la aado waqti aan ahayn bilihii xajka si loo soo guto cibaadada cimrada la yidhaahdo oo gaar ah shuruud gaarana iska leh halkaa waxaan fahamnay xaj waa maxay cumrana waa maxay qodobka labaad waxaan geli doonnaa fadaa'il ilxaj rabbi subxaanahu wa tacaala asagaana abuuray koonkanna keenay waana yaqaanaa rabbi subxaanahu wa tacaala oo bini aadamka haddii wax loo diro oo shaqo loo diro su'aal baa soo gasha maskaxdiisa odhanaysa maxaan ka helayaa waxaan maxaa iigu jira oo nafciya oo faa'iidaah rabbi marka subxaanahu wa tacaalaa wuxuu noo sheegayaa waxa nuugu jira oo faa'iidaah haddaan xajinno haddaan cumraysanno baa naloo sheegin walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila allah subxaanahu wa tacaalaa dadka wuxuu saaray oo waajib uga dhigay inay xajka aadaan inay tagaan kacbada iyo dhulka xurmada leh mashaacirta inay tagaan baa la saaray walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila haa allah wuxuu saaray subxaana wa tacaalaa dadka inay xajiyaan yaa la saaray man istadaaca ilayhi sabiila walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila qofkii awooda oo sahayna haysta daabadna haysta saasaa lagu fasiraa sabiilku waa azaadu waraaxila waajib weeye marka ciddii awoodda inay xajiso waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin qofkii gaalooba oo xajka inkira oo le xaj ma jiro waajib maaha rugni maaha alla uma baahna kuwa waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin aayadaha labada aayadood marka fiiri ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakata mubaarakan fii hudan lilcaalamiin laladii bibakata mubaarakan wa hudan lilcaalamiin fiihi aayaatun bayinaatun maqaamu ibraahiim waman dakhalahu kaana aamina walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin qofkii diida xajka oo inkira alla uma baahna caalamka alla waa ka maarmaa subxaanahu wa tacaala halkaa maxaa ku sugan marka waxaa laga dareemayaa maadaama qofkii inkira uu gaaloobayo oo diinta ka baxayo waa rugni weyn oo ka mid arkaanta islaamka sida noo imaan doonta nabigeena moxameda sala allahu calayhi wasalam xadiidi ibni cumar xadiidi abu hurayra waxaa nabiga la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam ayulcamali afdal camalkeebaa u fadli badan ayulcamali afdal camalkeebaa u fadli badan baa nabiga la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi iimaanu billaahi wa rasuulih alla ya rasuul in la rumeeyo ayaa u fadli badan waa iimaankii qiila huma maada maxaa ku xiga alla ya rasuul haddii la rumeeyo maxaa ku xiga qaala aljihaadu fii sabiili illaahi jidka ilaahay oo lagu jihaado ayaa ku xiga qiila huma maada maxaa ku xiga qaala xajun mabruur xaj baari lagu noqday oo lagu samafalay ayaa ku xiga xadiidkaa waxaa wariyey bukhaariya muslim mabruurka waxaa looga jeedaa xajka aan xumaanta lagu samayn ee macaasida aan lagu samayn xajkaas ayaa ku xiga marka muxuu noqday camalkii saddexaad xagga darajada saraynta iimaan billaahi wa rasuulihi uma aljihaadu fii sabiili illaahi uma alxaju abi hurayra wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam baan maqlay oo leh man xaja falam yarfuth
walam yafsuq rajaca ka yowmi waladatu ummuhu muttafaqun calayh. abu hurayra wuxuu yihi rasuulka waxaan maqlay sala allahu calayh wasalam isagoo leh man xaja qofkii xajiya falam yarfud waxyaalaha shukaansiga haweenka iyo jimaaci haweenka iyo dumarka sheekadooda aan gelin shukaansiga iyo jimaaci iyo walam yafsuq xumaanna aan samayn xumaanna ma samayn waxuna kuma hadlin oo ku saabsan dumarka iyo arrimahooda iyo jimaaci iyo xumaanna ma samayn qofkaasi wuxuu noqonayaa rajaca ka yowmi waladatu ummuhu qofkaas wuxuu soo laabanayaa asagoo la mida maalintii hooyadii ay dhashay. hooyadaa maalintay ku dhashay dembi maada lahayn, ilmo yaroo waxa ahayd ciise ahayd, mulqu yar baa ahayd, wax dembiya maada lahayn. qofkii xajiyey ee 70 jiray ee 60 jiray ee 50 sano jiray ee 40 sano jiray ee 30 jiray 20 jiray intaas wax soo samaynaye xumaani ka dhacaysay xaj sax markuu xajiyo oo uusan xumaan ku samayn xajkii nebiga xajiyey sala allahu calayh wasalama dembigiisi waa la dhaafayaa rajaca ka yowmi waladatu ummuhu. marka waa wax weyn waaye, waa nasiib qofkii hela, waa fursatulcumri qofkii hela oo dembigiisa la dhaafo oo rabbi u dhaafo subxaanahu wa tacaala oo rabbi ka aqbalo wax alle wixii dembi yahaa baa laga tirtirhaya. rasuulka moxameda sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi abu hurayra ka wariyey alcumratu ila alcumrati kafaaratu limaa baynahumaa. cimro ilaa cimrada kale laga gaaro inta u dhaxaysa waa lagu asturaay waa lagu dhaafa. cimra ila alcimra alcumratu ila alcumrati kafaaratu limaa baynahumaa inta u dhaxaysaa lagu dhaafaa. waalxaju lmabruuru laysa lahu jazaaءun ila aljanna. xajka lagu samafalay ee xumaan laga ilaaliyey ee si saxa loo xajiyey amaal male qofkaasi aan jannada ahayn. xadiidka bukhaari muslim baa wariyey. u fiirsa muslimow muslimaday xaajiga xajinahayow xooluu ka baxayaanow xajulmabruur baa la iska rabaa. waalxaju lmabruuru laysa lahu jazaaءun ila aljanna. xajka lagu samafalay ee aan xumaanta lagu samayn si saxa loo gutay amaal kala male qofkaasi ilaa jannada mooyaane. amaalkiisu waa jannada. haddee adduunkan aan joogno ee imtixaanka aan u joogno ee rafaadka ah qofkii janno helay maxaa ka maqan? ee hal mar hadduu xajiyey laga aqbalay janno mutaystay qofkaas maxaa ka maqan? qur-aanka waa aragteen faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaza. qofkii naarta laga dheereeyo ee naarta laga fogeeyo ee jannada la geliyo faqad faaza waa liibaanay qofkaas. liibaan ma rabtaa? waa naartoo lagaa badbaadiyo jannana aa geshid. wama alxayaatu اdunyaa ilaa mataacu اlguruur. halkaa u fiirsa marka waxaa la yidhi waalxaju اlmabruuru laysa lahu jazaaءun ila aljanna. xajkii lagu samafalay ee xumaan laga ilaaliyey si sax loola yimid xajkii nebiga sala allahu calayh wasalama waafaqay amaal male qofka saa sameeyey janno mooyaane. allah nagu daro kuwaas oo dadka muslimiinta xajinayana xajkooda xaj mabruura allah ka dhigo si jannada amaala u noqdo. qodobka saddexaad oon ka hadlaynaa wuxuu yahay xukmulxaj. xajku xukumkiisu waa maxay? xukumka xajku muxuu yahay? ma sunna ma waajibba muxuu yahay? xajku waa tiir ka mid ah tiirarka islaamka, arkaanta islaamka ee 5 tiir ka mida wey. waa waajib biitifaaqi اlmuslimiin. kitaabka qur-aankaa sheegay, nebigaa sheegay sala allahu calayh wasalam, muslimiintaa isku raaco isku waafaqay. haa muslimiinta ayaa isku waafaqay oo aayaddu maxay ahayd aan soo marnay ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakata mubaarakan hudan lilcaalamiin fiihi aayaatun bayinaatun maqaamu ibraahiim waman dakhalahu kaana aamina walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila waman kafara fa ina allaha ganiyun can alcaalamiin. haa walilaahi cala annaasi aayaddu halkaa way daliilku. walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila. waa waajib marka qur-aankii baa sheegay. nabiga moxameda sala allahu calayh wasalam
حديث ابن عمر في الصحيحين نبي عليه الصلاة والسلام وعيري بني الإسلام على 5 إسلام كشن بالود السي شنتير يا إسلام كل سيء شنتير حاول رأيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قف كونه قره كما راتيكعه أوجاده فهمه مسكح ذا قليه كل رقمه الله سبحانه وتعالى مويانه عيد كلا وكسو هرتي وعبادة مدن مجرد شهادة أن لا إله إلا الله محاولية وأن محمد رسول الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إنه يهي كي الله صادري إيه هنونك الله صادري حق الله صادري أي تهي أساقا إلا الراعي جد كيسا كليها اللي بدباد هي دي جد كلا لمره والله لوميا والله هلاك سمهيا بدعا لقلهيا محالة بيا وإقام الصلاة صلاة دو سيقو من لو تكدو صلاة أو سيقو من لو تكدو أو لبرتو صلاة أركانها وفروضها واجباتها وشروطها وسننها وآدابها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا تكدو صلوا كما رأيتموني أصلي maxaa saddexaya waytaa zakaat in zakada la bixiyo zakada in la bixiyo qofka xoolaha la siiyay ee loo nimeeyay xoolo haysta nool mood haysta lacag haysta beer u bixeen qof macdan haysta inuu xoolihii xaqi ilaahay ka bixiyo ha maxaa fareeya wa sawmi ramadaanka in la soomo wataan soo soonay ramadaanka fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala wataan ramadaanka soo soonay soomaa ilaahay naga aqbalo ها وحج البيت باشان أمرك إن بيتك إلا آذو أول حجيو أيها رغنك شنادا فير مركا شنتي تير إسلامك حجك كم ذا حجك أيها كم ذا ورغنك شنادو صوما علماء مرك وحسوا وافقين مسلمين تونو واجب يهي سيدا كتابك القرآن كشاقي نبينا شيخ صلى الله عليه وسلم سادرتد قفكي انكره او يراه انيغي حج لا يقوم له واجب يقوم إما صارنا وركاس كما جيرو ركن اسلام ماها قفكاس وا غالوبهي قفكاس ريدو غلايا و غالوبهي دينتو كبخيا قفكاس ومساله ادو خطر وي صوبت قفكاسي وحو انكري وح ربنا شيخ سبحانه وتعالى او قران كو شيغي وجوبكيس نبينا شيخ صلى الله عليه وسلم مسلمين اسكو وافقين ان خلافه كجيرين ايو ديده marka islaamnimadiisa qofka ma jirto halka maxaan fahamnay xajku waa rukun min arkaan islaam waana waajib cidi awoodo min sadaa ilayhi sabiil cidi alla xoolasiyo weeye ee awoodo waan ka hadli doonaa imrada miya iyaduna ayuna waajib imradu waa waajib sida xoog badan waa waajib ها ومذهب الشافعي وواجب عمرض علماء بدن واكو راعين وفر بدن امام احمد با كمن دو اسو خليه واجب علماء قار باقبا وا سنه ها سيده مالك ابو حنيفه وحليه ابو ثوري وا سنه لكن واجب عمرض واجب حجينا وواجب واتير اركانته كميده كا مرن مله عمرض علماء قار يراهدان وا سنه سوما عمرضنا واجب ايضا كو سؤال با إيمانس مرك سؤال با إيمانس وواجب حج واتير كميدا أركان الإسلام سوماها إما سقور بواجب هي ما هالمرة على إسكربا ما لبا على إسكربا ما صدح على إسكربا إما سقور بواجب هي علماء المسلمين حسقوها فقسين سنة النبي قلنا شيخ صلى الله عليه وسلم هالمرة أيوة واجب يا حج يعمرضوا لبضبا قفك أول هالمرة عمريس هالمرة على قربها هالمرة ده حجز هالمرة عمريست واجب وكذا وحي كسهر وسنة ها وسنة وليبا حلقة يا بقى قفك هدو هالمرة حجيو هالمرة عمريسته واجب وكذا عصوما نقول له واجبك هادو ku ceshada waa sunno waxa laga yaabaa lacagaha badan dadka ku ceshada xajka ama cimrada ku ceshada lacagaha badan bixiya waxa laga yaabaa meelo ka haboon
oo waajib ah inay jiraan sida dadka baahan ee masaakiinta ee baahida u dhimanhaya ee dharla'aantu hayso daawo la'aantu hayso qofka marka waa inuu eegaa hadduu mar xajiyey oo mar cimraystay haa qofkii soo maa inuu fiiriyo war sunno way wixii ka harae meelo ka waajibsan baa jira ku bixi lacagti qofku hadduu ku nadra laakiin oo nadar asagu galo oo ah inuu ilaahay wuxuu ugu leeyay inaan xajiyo sanadkan waajib bay ku noqonaysaa xadiidka nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa muslim wariyey wuxuu nabigaa noo khudbeeyey sala allahu alayh wasalam abu hurayra wuxuu uhi yaa ayuha annaasu ina laqad farada calaykum alxaja faxujuu dadow ilaah baa ini saaray xajkae xajiya dadow ilaah baa xajka ini saaro inku waajibiye xajiya nin baa istaago wuxuu yidhi akulla caamin yaa rasuula allah sanad kasta miyaa rasuul allow rasuulku aamusay sala allahu alayh wasalam ilaa ninkii saddex goor yidhi akulla caamin yaa rasuula allahi rasuul allow ma sanad kastaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalama low qultu nacam lawajabat walama stadactu haddaan dhihi lahaa haah waajib bay inku tahay sanad kasta haddaan dhihi lahaa waa waajibi lahayd miyna awoodeen wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam daruunii maa taraktukum fa inamaa halaka man kaana qablakum kahratu su'aalihim wa ikhtilaafhum calaa ambiyaa'ihim idhaafa intaan idinka tegaayo dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay su'aalo aan macno lahayn ee ambiyada lagu wareeriyey ambiyadoo laga hor yimid oo jidkoodii laga leexday fa idaa amartukum bishayin faatuu minhu ma sadactum haddaa wax ini faro waxa kartaan kala imaada wa idaa nahaytukum can shayin fadacuuhu haddaana waxin ka reebana ka taga haddaan waxin ka reebana ka taga oo faraa ka qaada xadiidka marka muxuuna tusinhayaa xadiidkaa wuxuuna tusinhayaa inuu xajku hal mar waajibayo hal mar inuu cimriga waajibayo cimradu inay hal mar waajibayso haa hal maraa xajisay adoo qaangaara baa xajisay waa soo cimraysatay xajka waa kaa dhacaya cimrada waa kaa dhacaysa wixii ka soo haray waa sunno marka halkaa mar waajibayo وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله